Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkan waxaynu ku soo qaadan doonaa Purchase Day Bookska. Waxaynu sii wadi doonaa buugaagtii Prime Entry Bookska. Ka inugu xigaana wuxuu noqonayaa Purchase Day Book. Fadlan subscribe tahay laawina gambaleedkana inoo fura si aanay idiin dhaafin fiidiyoyada dambe. haddaba haddii aynu u nimaadno Purchase Day Book wuxuu ina tusaa liisaska supplies invoiceska aynu helay marka Purchase Day Book waa liisaska credit invoiceska waxaynu ku liis garaynaa dhammaan purchaseska aynu ku soo qaadanay creditka ee aynu ku bixin doono waqti yar kadib marka halkan waxaynu ku aragnaa dhammaan supplier invoiceski aynu helay marka waxaynu ku liis garaynay Purchase Day Bookgeena waxaad ogaataan in ay isku dhow yihiin sidii Sales Day Bookga aynu ku soo qaadanay casharkii hore halkii aynu markii hore ku haysanay customer name-ka waxaynu haysanaa supplier name invoice numberka iyo slip-kuba way kala duwan yihiin waayo waxaynu ka helay suppliers kala duwan oo waxay ka imanayaan kumbaniyo aan isku mid ahayn waxaynu ku aragnaa dateska wiigii ugu horeeyay ee bishii December waxaynu haysanaa invoice numberski magacyadii supplierska net amountski supplierska sales tagaski laga jarayay purchaseskeena iyo gross amountski aynu ka helay supplier kastaba waa sidii Sales Day Bookgi oo kale marka aynu boos garaynano credit purchaseska waa in aynu ku boos garayno totalka managerkeena si aynu ugu samayno double entry-ga marka waxaynu ku boos garayn doonaa managerka inaga oo isticmaalayna totalka saddexda column lacagahooda haddaba haddii aynu eegno net waa net amountkii alaabtii aynu ka soo iibsanay supplierskeena oo total amountiskoodu uu ahaa $635 haddaba haddii aad boos garayso akoonkee ayaad ku boos garayn lahayd waxaynu ku boos garayn doonaa magaca uu Day Book uu leeyahay oo ah Purchase marka waxaynu dhibid garayn doonaa oo badan doonaa Purchase expenses statement of comprehensive income keena total amountiska purchaseki aynu samaynay wiigaas oo aynu ku dhibid garaynay 4 meelood oo aynu wax ka soo iibsanay markaana aynu soo boos garaynay total amountiski wiigaas oo ahaa $635 si uu u noqdo Purchase akoonkeenu mid si fudud loo akhrisan karo maxaad u malaynaysaa totalka sales tagaska $95.25 ma xasuusataan halkii aynu ku soo boos garaynay dabcan waa net sales tagaska waxaynu dhibid garayn doonaa sales tagas control accounts haddaba total gross amountska $730.25ka waxaynu ku boos garayn doonaa dhinaca creditka ee payable account-ka waxaynay badinaysaa credit amountska ay inagu leeyihiin supplierskeenu marka tani waa payable figure-kii guud ahaaneed waxaynu ugu yeedhi doonaa payable account-kan payable control accounts waxaanay isku mid yihiin sidii receivable control account-ka oo kale ee aynu casharkeenii hore ku soo aragnay marka guud ahaan waxay inagu leeyihiin supplierskeenu $730.25 laakiin account payable departmentsku waxay u baahan yihiin in ay ogaadaan cidda ku kala leh deyntaas markaas subsidiary ledgerka ama subsidiary payable ledgerka waxaynu doonaynaa in aynu u kala jajabino credit payables controlka 4 credit supplier oo uu gooni uu yahay supplier account kastaaba marka account payable departmentsku waxay ogaanayaan ka ugu macquulsan ee ay doonayaan in ay bixiyaan deyntiisa ee aynu ka soo qaadanay
subsidiary ledgerka markaa waxaynu boosgarayn doonaa gross totalka sharcigii receivable control accountka iyo payable control accountka wuxuu ahaa wixii aad ku boosgarayso receivableka iyo payable control accountka sidoo kale waxaa loo kala jajabin doonaa subsidiary ledger accounts waxaynu halkan ku aragnaa ledger accounts madhan mid waxaynu u bixin doonaa payable control account ka kalena waxaynu u bixin doonaa subsidiary payable ledger waxaanaynu u sii kala jajabin doonaa akawno gooni ah supplier kastaba marka waxaynu nidhi payable control ka purchase daybuugeena waxaynu ognahay in guud ahaan inagu leeyihiin supplierskeenu $730.25 taasi waa guud ahaan payable figureka akawnkani wuxuu tegi doonaa statement of financial positionka isaga oo ah dayn ahaan waxaynu ku arki doonaa main ledgerkeena oo ah halka double entryga aynu ku samayno sidoo kalena waxaynu doonaynaa in aynu u kala jajabino amountiskaas subsidiary payable ledger mararka qaarna loo yaqaano subsidiary purchase ledger waxa aad halkan ku aragtaan ledger accountiska supplier kasta oo aynu wax ka soo qaadanay haddii aynu credit garayno payable control waa in aynu u kala jajabino credit supplier account gooni ah purchase daybook waxaynu u soo gaabsan doonaa PDB pool wuxuu inagu leeyahay $86.25 taas oo ka timid halkan waxaynu doonaynaa in aynu sidoo kale samayno Juan, Billy iyo Ann haddaba Juan purchase daybooka waxay inagu leedahay $184 taas oo geli doonta dhinaca creditka ledger accountiska Billy na sidoo kale purchase daybooka wuxuu inagu leeyahay $57.5 supplierka Anna waxay inagu leedahay $402.5 haddii aynu balansyada afartan account ee yaryar isku geyno waxay la mid noqonayaan balanska payable control accountka inoo yaala haddaba haddii aynu soo koobno oo aynu ku noqonno diagramkii casharkeennii accounting systemka ee aynu hore u soo qaadanay books of pre-entryga waxaa ku jiray purchase daybook oo aynu totalka ku boosgaraynay main ledgerka payable control accountka ee purchase iyo sales tax controlka sidoo kalena individual gross amountiskana aynu ku boosgaraynay individual subsidiary payable ledgerka marka waxaynu imika soo aragnay in ay isku mid yihiin wixii aynu ku soo aragnay casharkeennii hore ee accounting systemka sida payableka iyo receivableku u shaqeeyaan waxaad xusuusnaataan exampleka casharkan purchase daybooka iyo casharkii hore ee sales daybooka in ay isku xidhnaan doonaan casharada dambe inoo soo socda waayo waxaynu u baahnaan doonaa marka aynu samaynayno returns daybookiska ee casharada inugu xiga insha Allah waad mahadsantihiin